محمد يا رسول الله صلى محمد يا رسول الله صلى عليك وسلم المولى محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كوكالمي ولاكا كليك سي ايو ديرغليسو وقصوين كيني تحناها سويالك سوبنا صلى الله عليه وسلم قيبتي. haddii aan ka hadalna gacanka carbeed kama jirin ilbaxnimo falsafado dhaqamo iyo xeerar loo wada dhan yahay sidaan soo sheegnay intaan suubanaha sallallahu alayhi wasallam la soo dirin dunida waxaa ka jiray dawlado waaweyn sida Roomaanka, Giriiga, Faris, Hindiya, Shiinaha, Masaarida, Xabashida iyo kuwa kale. Dawladahaasi haba ahaadaan kuwa ay siyaasadooda aad u hooseyso marka la eego dhanka maamul wanaagga, cadaaladda, sinaanta iyo anshaxa. Saahate waxay lahaayeen xeerar iyo falsafada ay ku dhaqmaan ilbaxnimo iyo taariikh soo jireen ah sida ay tahay Allah subhanahu wa ta'ala risaalada islaamka oo gunaanad u ah risaalooyinka oo Allah subhanahu wa ta'ala soo diray ayuu u doortay inay ka dhalato ama ku soo dejiyo gacanka carbeed oo xilligaas lagu tilmaami karay in aysan ka jirin haba yaraatee waxyaabaha bulshada lagu dhiso laguna hormariyo. Waxa ugu mudan ee carabtu ku faani jirtay wuxuu ahaa gabayga, laakiin rasuulka sallallahu alayhi wasallam uusan noqonin gabiya mudnaana ma siinin waxaana meesha laga saaray in ay isdhex galaan waxyiga iyo gabayga oo kadibna Quraysh ay tiraado waxyigu waa gabaygii oo Maxamed habeen ku sameeyay ama awalba ninkan gabiya aftahana ayuu ahaa wuxuu akhrinayana waa gabiyadiisii iyo suugaantiisii oo isku kaay soo kabkabay. Rabbina subhanahu wa ta'ala wuxuu quraankiisa ku yiri wama 'allamnahu ash-shi'ra wama yanbaghi lahu in huwa illa dhikrun wa qur'anun mubin. Ma naambarin nabiga sallallahu alayhi wasallam shicir gabay kumana haboona waxaan barnaa uun waani iyo quraan cad